aad baa inii salaamaya qofka xunka idris beebada dhaho bishimaha ceeriinkaa wata anuu mid baan kuu sheegaya hal erey baa ku yidhi maxaa u dhex gelaysaa baa ku yidhi dadkan is haysta ceebba qabiil baa futada la gelaysaa qaranuu qabiilna kamaana hadlin dadna maana jaifeen adaan ku haystaa anuu qofyo koryaa mulaxeedka u eg soo wada bax annaga qabiil futaha nima gelineen anu maanta hadaa qabiil caayo ama ka sheego wax faa'iida iisu kordhisa male inta meel usoo fadhiistan horta weligay qabiil ma caayin maa garan marka niyahow ha ku rafan waxaase soo wada bax ama dadka saga dhaca bax runtaa kuu sheegaya anu qof xunkaayo baroodiga naagtaa u eg السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسر هذا معلم تنال أصحابتا عصنا وصل بهرتكون يكون جلان صدويننا ناقوة كلتنا صدر هذا منكينا وحصارك تين أصحابتا فيديو كان عن دول استاغرامنا ودقال عصب ونحمرايو لو لجن يحبل يو إدريس بابا وح اسكر رابتين مران ما دح قلينو إدريس عربا يحبل وصو أركتين أفكا وحي ودقاي إلههم بأوك لكن waxaan dhihi lahayn on waxyaabo anagna la gudboon unba horta ka hadli rabnaa shakhsiyan ininkan fikirkiin waan ka dhiibin kartiin asxaabtana dee meesha hanugu ceebeynina waxaan laga rabaa garanaysiin asxaabta kale runtii waxaan arkay video aan soo dhigay inta qof ee daawatay markaan dib u baaray waxay noqdeen dadka asxaabta uga ma asxaabta kala daawanaysa ka badan marka video hadduu kusoo garo daawatay aa ka heshay jana kala kiciya codsi waa intaas oo noo gooni ah aan dul istaagno yaxbul waa aragna ani yaxbul waxaan siiyey kabtanka runtii kabtan waxaan ka wadaa macnaha waxaan u xiray calaamadda kabtannimada oo qofka hadalka aan la gabanin wixii afkiisa ka soo baxo ninkaas uu maago uu ku dhahaa yaxbul marka waxaan dhihi lahaa niyow naga yare hadallada culculus ee afka qaar ka soo baxaayo Idris Baba naftiisa waan dhageysanay oo runtii waa la socotaan wax cusub ma ahan laakiin dagaalkooda antu ka bilowday that's the point inaan dul istaagno iyo xalka muxuu yahay dagaalkooda raggan wuxuu ka bilowday Idris Baba ayaa runtii ka soo hadlay khilaaf axmaray CK iyo Captain Ayub iyo Cabdiqaar Boos ayuu ka soo hadlay marka waxaan u maleeyaa yaxbul asagan runtii fikirkiisa kasoo dhiibtay asagoo lid ku ahaa hadalladii Idris Baba hor sheekada meesha kasoo qaraacday marka dib loo fiiriyo waa ogna TikTok inuu kacsanaa maalmaha la soo dhaafay walow hadda uu degay waxaan aad u amaanaa runtii Captain Ayub iyo Cabdiqaar Boos waxaan ku amaanaa runtii sida loo maleynaa iyo hadalkooda soo noqday waxay noqdeen laba kala dheeri ah waxaan maqli jirnay kaafi kala dheeri way ciyaareen akhyaarta waa jabsadeen saala socona muhiim ah qofka badiilaaga uga dambeyn waxaan aad u amaanaa inay sheegeen in arrintii qabyaaladda iyo qurankii iyo wixii runtii magacii noocaas ma laga aaminsanaa inay meel dhigeen ay runtii ku dadaali doonaan si dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku midayn lahaayeen arrintii qabyaaladdan ay meel naga saareen ee dhaheen macnaha waxana waa macnaha anagu ma isfordisanayne waa isku leesanayne ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa in runtii arrintaas ay ahayd arrin oo anaga gudaha naga sii jirin laakiin haddana aan soo gabagabeyn doono Cabdiqaar Boos hadalka soo yeeray Captain Ayub uu ku raacay sheekadan horta dagaalkan yaxbul iyo Idris Baba meesha kasoo bilaabatay hadda intee maraysaa waxaan soo aragnay yaxbul oo hadallo kulul kusoo dhahay Idris Baba naftiisa ma yareysanin saakan daawanay asagoo odayga karbaasha ah laakiin anaga waxaan dhihi lahayn un asxaabta laba nin oo dhalinyaro tihiin oo asxaab ah dhalinyarada Soomaaliyeed waa ognahay hadda qurbaha waxa ka dhacayo dalka hooyan waa la soconaa in lisleenaayo lisdilaayo waxa ugu dambeeyay runtii waxyaabo oo argagax ah inay ka dhacayaan waxaa la soconaa qurbihii waxyaabaha ka socda hadda Mareykanka waxa ka dhaca aragteen in wiil Soomaaliyeed lagu dilay ayadoo dhibaato noocaas ay jirto in hadda ninka dhexdiina macnaha saan sii gashaan waxaan dhihi lahaa horta wax fiican ma aha yaxbul iyo Idris Baba marka naga yareeya arrintan hoos ha loo xaliyo labadiina waxaa tiin laba qof oo lejana ah magaca kule bulshada Soomaaliyeed inta badan ani waxaan hadda
eed saari lahaa boqolkiiba boqol ninka laho yaxbul waayo yaxbul waxaa ma reebo nin idris bebe waa xishooda wax yar hal mar uu hadlay ama laba mar ma aqaano hadaladiisna waa yara controlnaa laakiin yaxbul qofka wuxuu galaa waa ku cayn hadduu ku dhaw waxaa umaanaynan cayda loox maalasoo marka yaxbul waxaan dhihi lahaa niyow inaa hadda qofaa qaldan iyo qofaa qaldan dhahan qofaa saxsan dhahna macno ma samaynayso laakiin mimid waxay ta un in arrintan aad soo afjartaan aana ku soo afjartaan qaab wanaagsan runtii aanan mar damba soo laabanin that's a point aan rabno inaan dul istaagno haddii ay sii socoto maxaa dhici doona haddii socoto waxaa dhici doonta in labadiina runtii colaadiin ay sii fogaato group ay kala samaystaan saa hadda la socon way dhacda inta badan in group loo kala baxo uga dambeyn natiijadeeda wax hadda aan sii dhexgelin ma wax wada ogtihiin wax ka dhalan karo haddii group loo kala baxo ama wixii ay sii socdaan horta inta badan waxaan way bilowday markay bilowdaan haddana way damaan laakiin maalmihii ugu dambeysay waxaa moodaa horta inay say noqoto arrintan asxaabta waxaan dhihi lahaynay yaxbul iyo idris bebe fariinta inii soo gudbina waxay tahay naga yareeya videoga hadda yaxbul waa soo aragteen idris bebe videogiisa waarina soo qaato laakiin videoga naga sii dheereenayo macno ma sameyna inaan soo qaadan laakiin hadaladiisa waxaa ku jirta un idris bebe inuu fikirkiisa dhiibtay uuna xor u yahay inuu ka hadlo laakiin arrimo qabiil wax noocaas u galgalay yaxbul naftiisa waa aragnay isagoo dhahay macnaha aniga waxaan ka hadlay arrimo oo public ah maxaa kusoo dhexgeli adiga laakiin inta uga badan waa un ay kala fikir duwan yihiin labada markaas u fiirisid waxaan dhihi lahayn un naga yareeya waxaan buuqan soo afjara marna inaan mardaa maqalno waayo dhagahayna waxyaabo kaloo fiican ayaa jecelnahay inaan maqalno laakiin in waxyaabo digaal iyo buuq iyo waxyaabo lamid ah ay soo laabtaan maanta kulle wax fiican maahan waayo dhagaha haddii ay ku bataan munkarka ama buuq uu ku bato waa natiijadeeda runtii wax fiican maahan saada loo socon laakiin waxaa kasii fiican in qaabka wanaagsan aan u fikirno mar walbaba walaalo ahaano ayadoo adag tahay ogahay inay runtii suurtagal ahayn in ummadda dhanba ay hal mar way jiraan macaarad macnaha waa qof macaarad samaysan karaa laakiin macaaradka waxaa fiican inuu xadadnaado haddana public aan la imaanin waxaan dhegeysanayay shalay video aan kaga sameeyo in aragtay ma aqaano oo disla cabdi oo aad ugu amaanaya asagoo dhahayo dadka koodoor walaale yihiin asxaab yihiin ama waa lamaane oo nin iyo xaaskiisa camal waa isku baranay markay isku dhacaan kan intu fadhiisana tan intu fadhiisana ama kan intu fadhiisana kan intu fadhiisana adeen waa jafa haddii wixii socdaan wixii on labadan qof laba qof saaxiib ahayn tiktokooda baashaal asxaab ah laakiin haddana yaxbul wuxuu leeyahay idris bebe saas waayo waa aflagaadtii u weyn afkeena soo mari karin idris bebe sidoo kale wuxuu leeyahay adaa qaldan adaa saxsan marka wixina dee waa wax un maanta kuwi lagu soo celinay musalsal camay noqotay hadda marka waxaan dhihi lahayn asxaabta arrintan dagaalka soo laabatay hadda kahor aynii sheega waxaan dhahay wax qaldan daa arko ani waan sheegaa marka labada qofka qaldan ana ogahay laakiin tan waxay u tahay warning haddii aad sii socoto qofka qaldan waxyaaba ku qaldan waa sheegeen wax ma la qaranaa taa ballan waa ma dhahayaan hiblow qaldan iyo hiblow saxsan hadda waayo marka wax la xalinaya waxa fiican in si guud loo xaliyo laakiin qofka dulmi waa in iska qabto wax fiican waa marka saxaabta videogan ma kusii fogaanayo dagaalka idris bebe yaxbul ku saabsanaa meel inta gaarin ognahay in aflagaado xunxun hawada isku soo mariyay walow gacan weli gaarin laakiin hadday oo gacan gaartan xalkeeda waa macnaha natiijadeeda wax fiican ma ahan laakiin waxaan dhihi lahaa on gacan ma gaartin insha allah way qabooy wayna degaysaa asxaabta ka dhex jirtan runtii dabka shidaysan waxaan dhihi lahaan ragga ka dhexbaxa ayaka asxaab ah dhaleen isla ah dagaalkoodana haddii usii socdana wax faa'iidada ma kugu jirto runtii inay heshiyaan in laga shaqeeya fiican in hadda ay iscaayaan waalida caayo lis afagaadi ama qabiil wax noocaas camal wax fiican ma ahan waa waxa dhammaantan aan ka wada dhareegsanahay natiijada kasoo bixi karto arrimaha noocaas oo kaleeta aan kusii fogaanayno inaan kasii hadalnana runtii wax fiican oo video unbaa naga sii dheerana ma ogi wax kaloo natiijo kale ma lahan mimid oweyn waxay ta un fariinteena ugu muhiimsan waxay ta un in arrintaas lasoo afjaro la joojiyo dadka wadana runtii ay qaataan talo la soo jeedinaya dadku dhex jirana ay runtii ka shaqeeyaan sidii ay ku midoobi lahaayeen labadan qof asxaabta videoga intaas kusoo gabagabeynaa hadday tahay markuu rajanaka aad soo booqatidna fadlan subscribe